wanaagsan khayartana dhageysanaysa halkaas nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shalayta soo saartay qoraal ay ku ogolaatay in madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee maamulkaasi Jubbaland muddo 2 sanadood oo ka bilaabmaysa markii la doortay. waxaana sidoo kale ku xigtay warqad lagu casuumay inuu ka soo qayb galo kulanka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo lagu qaban doono magaalada Muqdisho. saacada kadib warkaasi ka soo baxay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa iyaguna qoraal soo saaray mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland oo ku diiday ogolaanshaha muddada xilka ee dawladdu ay soo saartay. arrimahaasi ayaa ku soo beegmayay iyadoo ay soo dhowdahay muddo xileedkii dawladda hadda jirta. sidoo kalena waxa la sheegayaa inuu sii kordhayo culays ay beesha caalamku ku saarayso dawladdu inay la xajooto maamul goboleedyada dalka ka jira ee ay istiidan yihiin. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amurahaasi ku saabsan inoo diyaarisay. saacado ka hor intii aysan magaalada Djibouti u duulin saddexda mas'uul ee dawladda federaalka ugu sareysa ayaa waxa soo baxay qoraal ay dawladdu ku aqoonsatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee Jubbaland waxaana ay muddo xileedkiisa ku sheegeen 2 sano oo ka soo bilaabanaysa markii la doortay. haddaba Rashiid Cabdi oo cilmi baare ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo gacanka Carbeed ayaan weydiiyay waxa keenay in ay dawladdu soo saarto qoraalka ay ku aqoonsatay Axmed Madoobe. dhowr arrimood oo isbiirsaday tan ugu horeysa waxa weeye cadaadis xooggan oo kaga yimid bulshada caalamka khaasatan dawladda Mareykanka. qof walba uu ogyahay in xiriir xooggan ay la leedahay dawladda Farmaajo oo waliba 2 sano u dambeysay ka waday howlgal culus koonfurta Soomaaliya dagaalka lagula jiro al-shabaab. sababta labaadna waxa weeye hiisigii dawladda Farmaajo oo ahaa in isbedel ballaaran ay ku samayso gedo oo dhaboobi waayay taas oo ay keentay mid horta waxa weeye cadaadis kaga yimid bulshada caalamka dawladda Mareykanka iyo wadamada kale oo taageero Soomaaliya waxay soo saareen warbixin dhowr jeer oo ay maaragtay ku ambaareynayaan dawladda sababta ay u geysay ciidamo ay u geysay gobolka Gedo. sababta saddexaadna waxa weeye waqtigii oo aad gaabis u ah waqtigii doorashada ayaa lagu jiraa hadda marka waqtigii oo gaabis ah oo hiigsigii dawladda oo dhaboobi waayay sababtaas soo dejisaan u maleynaya in villa Soomaaliya ay soo saarto warbixintan. aqoonsiga ay dawladdu aqoonsatay Axmed Madoobe inuu yahay madaxweynaha 2 sano ee Jubbaland ayaa waxa laga marmaan u ahaa sidii madaxda federaalka iyo maamul goboleedyadu u yeelan lahaayeen kulamo looga hadlayo doorashooyinka si taa loo sameeyana waxay ahayd in Jubbaland ay miiska soo fariisato qaabka ay ku timaadaba sida uu sharxay Mursal Sanay oo ka tirsan macadka Heritage ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho. Falastiin madaxweynuhu wuxuu qiil u suubsanayaa qiil uu kula fariisto Axmed Madoobe ayuu rabaa inuu ka dhigto waraaqdan wuxuu kaloo doonayaa madaxweynaha inuu u ekaado oo dadka asaga raacsan u muujiyo inuusan ka laabanin go'aamadiisii hore marka uu leeyahay araarta warqadda marka la fiiriyo ama waqtiga uu qabtay oo ah waqtigaas gaaban oo aanan waqtigii Axmed Madoobe la doortay ahayn marka waa qiil uu ku raadsanayo sidoo Axmed oo la fariisan lahaa. maamulka Jubbaland ayaa saacado gudahood kadib qoraalkaasi waxay iyana soo saareen mid ay uga jawaabayaan iyagoo gabi ahaan badiiday qoraalka dawladda. dhinaca kalena wasiir dawlaha madaxtooyada Jubbaland Xirsi Jaamac Gaani ayaa ka waramaya sababta ay ku diideen qoraalka dawladda ee 2 sano loogu ogolaaday in xilka uu sii hayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka ay u madax banaan yihiin qaabka ay u xoranayaan ama ay u dooranayaan madaxda iyo hay'adaha la doorto. taas marka waxay ka dhigaysaa in waxaan ku ilaalay dawladda federaalka aysan wax shaqo ku lahayn doorasho ka dhacday Jubbaland sharciyadeeda iyo sharci la'aanteeda iyo hawl u taalana aysan ahayn. taas waxaa muhiim ah marka inay tixgeliyaan oo ay ilaaliyaan kuna sugnaadaan dastuurka xuduudiisa. dawladda federaalka ayaa faahfaahin ka bixin sida ay ku timid qoraalka ay ku aqoonsatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo horey doorashadiisa ay ugu tilmaantay sharci darro waxaana taa ka carooday qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda Jubbooyinka. xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada deegaankaasi laga soo doorto ayaan weydiiyay sida uu arko qoraalkii dawladda ay ku aqoonsatay Axmed Madoobe iyo diidmada madaxweyne Axmed Madoobe.
runtii warqad official ah la xigan kara maaha waayo wax article ma laha timbara ma saaro ani hadda meelay kasoo baxday iyo siday kasoo baxday ma aqaano laakiin haddana lama dheelsan karo oo baraha meelaha madaxtooyada uga dhadhow miidiyaheeda ayay ku wada qoran yihiin walow aan hadda xaqiiqsanay in iyaga ruuxooda qolada 2 sano aqoonsiga la siiyey ay soo jawaabeen oo ay ku diideen haddana warqad sidaa loogu wareeray ayay ahaayeen qoladii la weydiin lahayna waddanka waa ka wada maqan yihiin laakiin haddii ay bajarto waa khayru sharci dastuurkana ma waafaqsano waxayna u eg tahay cadaadis fara badan dad la saaray warqad ay qoreen ayay u eg tahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo wafdiga hogaaminaya ayaa hadda ku sugan Djibouti oo ay uga qayb galayaan wadahadallo ay la leeyihiin madaxweynaha Somaliland waxaana la filayaa in marka uu soo laabto hawsha ugu horeysa ee hortaalla ay tahay in xal laga gaaro khilaafaadka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar si ay uga wada hadlaan maamulada gobolada iyo dowladda dhexe hanaanka doorashooyin xor ah oo xalaal ah ay uga dhici karaan Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.